haddaba isaga uu ahaa fanka Soomaalida fan aad iyo aad u qiimo badan xidiga waaweynna ay ka soo baxeen ayaa haddana wuxuu ahaa fan leh xifaaltan iyo waliba isreexid fanaaniinta waaweyn ayaa iyagu badanaa aad u dhiibsanayay inay soo caan baxaan ama ay ku soo baxaan fanaaniin kale xifaaltankaasi ayaa ahaa mid joogto ah haddaba caawa waxaynu ka hadlaynaa xifaaltan aad iyo aad u qosol badnaa oo ka dhaxeeyay fanaanka weyn ee la holin waayay Xasan Aadan Samatar Xasan Baashi iyo waliba ilmo mooge oo ah Axmed Mooge Liibaan iyo waliba Maxamed Mooge Liibaan xifaaltankan ayaa wuxuu ahaa mid aad iyo aad looga ogaa dhulka Soomaalida ee degto fankiisana uu gaarsiisan yahay ilmo mooge ayaa iyagu waxa ay fanka soo galeen lixdeemeeyadii iyagoo ah xidiga caan ah oo laga yaqaano geyiga Soomaalida markii uu fanka soo galayay fanaanka Xasan Aadan Samatar Xasan Aadan ayaa markuu fanka soo galay wuxuu la soo baxay cod hiiba leh wuxuu la soo baxay jilitaan cajiib ah iyo waliba isagoo soo jiitay dhagaha malaayiinta Soomaaliyeed ee fanka jecel abwaaniintii Soomaaliyeed ee xilligaasi joogay ayaa iyagu mid walba wuxuu isku dayay inuu heesihiisa iyo riwaayadihiisa u dhiibo Xasan Aadan Samatar kasoo bilow Ismaan Aadan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Maxamed Cali Kaariye iyo waliba abwaano kale oo aad iyo aad dhulka geyiga Soomaaliyeed looga yaqiinay haddaba ilmo mooge oo iyagu markaa xidiga ahaa ayaa iyagu xidigan ku soo baxay waxa ay isku dayeen in ay masraxa kala baxaan iyagoo heesa cajiib ahna soo qaaday laakiin fanaankani oo ah fanaan aad u cod macaana hibo iyo taalanti aad u weyn lahaa ayaa isagu waxa uu noqday number 1 abwaan walba ee heesihiisa u dhiibaan hees uu fanaanku qaado oo uu alifay abwaanka weyn Maxamed Cali Kaariye oo la yiraahdo kuwa loogu magac daray muuqa aan la kala garan cabku muhashadoodiyo heesaha macaan iyo muusikadii codkay dilay ayay dad badan oo Soomaali ah waxay aaminsan yihiin in Xasan heestaasi lagu qiyaamay oo labada aan la kala aqoonin muuqooda codka macaanna leh ay yihiin ilmo mooge laakiin in badan oo dadkay goobjooga u ahaa xilligaasi heesta la sameynayay lana socday waxa ay sheegayaan in heestaasi ay ka hadlaysay gabar kale oo aad iyo aad u jeclaa abwaanka heesta sameeyay Maxamed Cali Kaariye kuwaasoo uu isku qalday mar uu fadhiyay xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho waxa uu isku qalday sida la sheegayo Zaara Axmed Jaamac iyo waliba inantii uu jeclaa oo heesaha badan u sameeyay Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal haddaba heestaasi bal aynu dhageysano ma tahay hees lagu qiyaamay Xasan Aadan Samatar kuwa loogu magac daray muuqa aan la kala garan cabku muhashadoodii heesaha macaaniyo muusigiyo codkay dilay dhigaha aan kamaali marka aan ilaawaba waxay soo mirkiciyon maqlo wahaymaaye mahayo mana sugayo imana maqni mahayo mana sugayo imana maqni maareeyo sidee buu cishqigu maskaxdiyo qalbiga uga miirmaya haddaba daawada adigu sidee kula tahay xifaaltanka fanaaniinta Soomaaliyeed xilligaasi ka dhaxeeyay mana aaminsan tahay in xifaaltankani Xasan Aadan ilmo mooge ka dhaxeeyay uu yahay mid run ah oo dhacay mise waxaad ka aaminsan tahay inuu yahay mid la alifay oo dadku ay sameeyeen